halkan waa isgoyska Taleex ee magaalada Muqdisho waxa isugu soo baxay boqolaal dad ah oo ka kala yimid 20 degmo iyo deegaan ee gobolka Banaadir dadka halkan isugu soo baxay ujeedada ugu weyn ee halkan isugu yimaadeen ayaa waxa ay tahay taageerida doorashada qof iyo codka ah iyo in la soo xiray diiwaangelinta dadweynaha dhawaan ay bilaaban doonto doorashada golaha deegaanka mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa halkan goobjoog ahaa oo ay ka mid yihiin gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale xubno kale oo maamulka gobolka Banaadir ka tirsan qaybaha kala duwan ee bulshada haween dhalinyaro caruur iyo sidoo kale dadweynuhu ugu faraha badnaa ee gobolka Banaadir waxa halkan ka hadlay qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho waxa ay soo dhaweeyeen doorashada golaha deegaanka ee dhawaan bilaabanaysa dareenkooda ayana muujiyeen caawa ay isku soo baxan mudane madaxweyne anaga waxa diyaar u nahay inaan codkeena ku ciil baxno ani hooyaday ma la dooranin aabe ma la dooranin laakiin hadda ani waxa rabaa inaan waxna doorto layna doorto waana ku maadsantaa dalka heerka iyo mugii miisaaniyada la soo gaarsiisay cid walba ay wax sheegayso dhaka u dhigin mudane madaxweyne nafaalena waxaana diyaar u nahay inaan dalkeena difaacano 6 sano kadib in maanta aan ka hadlayno doorasho reer dharkeeleyna ee runtii si fiican ay u soo baxeen oo runtii isku soo diyaariyeen inay caawa isgoyskan Taleex wada imaano waa dareemi kartaa qof naafa ah degmada dharkeeley ka socdo qof dharkeeley ka socdo waa dareemi kartaa naafa ah in maanta aan waxa u imaanay inaan caawa hambaliyada dhammaan ka qayb qaadano runtii waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed ififaalo fiican haysanaa runtii waan u mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud gartay in maanta doorasho qof iyo cod ee dalka ka dhacdo halkan iyo dadkan waa dhaqaaqeen waxay u dhaqaaqeen doorasho qof iyo cod ah waxay diyaar u yihiin qof walba oo gobolka Banaadir ku dhaqan degmo walba uu degan yahay inuu codkiisa uu ku ku ciil baxo sidoo kale waxa dhamaatay gibi ahaanba luuq dambe oo la isku soo doorto iyo sidoo kale haddii luuqyada iyo sidoo kale la isku soo xulin jiray maanta kadib waa dhamaatay caawa ku dabaaldego santarka magaalada kaasi oo 30 sano kadib dagaaladii sokeeye ay Soomaaliya doorasho qof iyo cod ay ka dhicin maanta aad iyo aad u baasanahay in uu dalku gaaro one vote one person inta isku imaanaa la kala mudaleena degmada Daaniile waxaan shucuurteena ku muujinaynaa aan diyaar u nahay doorasho qof iyo cod ah degmada Daaniile maxaa diyaar u tihiin maxaartiin doorasho qof waxaan rajaynaynaa guul maxay kaga dhigantaa inaad waxaan u banaabaxoonaa inaan helno doorasho qof iyo cod ah gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo oo ugu dambeyn goobtan ka hadlay ayaa carabka ku dhiftay in shacabka Muqdisho ay direen hal fariin oo ah diyaar garowgooda ku aadan doorashada halkan waa isgoyska Taleex dabcan waxaad u jeedin in shacabkii gobolka Banaadir ku noolaa oo dhan ay isku yimaadeen ku baashaalayaan ayaga oo aad iyo aad ugu faraxsan natiijadii ka dhalatay maanta ay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ay shaaciyeen ee ka dhalatay muddadii isdiiwaangelintu ay socotay dadkii gobolka Banaadir iska diiwaangeliyey waxay ku faraxsan yihiin inay maqlaan dhagahooda ay maqlaan dadkii gobolka Banaadir ku noolaa oo 1 milyan oo qof ay isdiiwaangelisay dabcan waxay caawa waraysiyadii ay bixinayeen ama siday u faraxsanaayeen iyo halkudhigyadii fanaaniinta halkan joogta ay qaadayeen waxay ahayd maalmaha soo socda inay dhowdahay inay doorashadii maaragtay ay u dareeraan maamulka gobolka Banaadir iyo qaybihiisa kala duwan ugu dooran lahaa aad ayaan ugu mahad celinayaa guddiga doorashooyinka xaqiiqatan waa dadaaleen waqti badan ay geliyeen doorashadan maamulka gobolka Banaadir iyo dadkiisu waxay ku faraxsan yihiin in maanta la taagan yahay 30 bisha October 6 October in la shaaciyay maantay in la galo doorashadii in la galo farxad weyn ay noo tahay muddo dheer ayay sugayeen dadka gobolka Banaadir ay sugayeen inay maalmaha ka mid ah ay soo doortaan mas'uuliyiintii maaragtay hogaami lahaa dawladda madaxweyne Xasan Sheekh uu hogaamiyo aad iyo aad ayay maaragtay ugu dadaashay inay doorasho qof iyo cod dadka gaarsiiyo gaar ahaan dawladihii hoose in la doorto oo dadku ay doortaan dawladihii hoose dadka gobolka Banaadir sharaf weyn ayay u tahay waa waxay sugayeen intaas waa waxa caawa ay u faraxsan yihiin oo halkaas ay u dhooban yihiin oo aad arkaysid natiijadii maanta marka ay ku farxaan haddana guddigu uu yiri
maalmaha soo socda ayaa doorasho la galaya waxaan leenahay dadka gobolka banaadir isku diyaariya maaragtay inaad qaadatiin kaarka codaynta soo baxan waa kii ugu ballaarnaa oo iyadoo habeen ah magaalada muqdisho lagu qabto Juulo Shaakir Dalsan TV magaalada muqdisho